English korto wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo metaphor waa masal ama shabah wax ku shabahayso shaygaas uu yahay leedahay isagoo shayga uusan ahayn metaphor marka masalka ama shabaha wax ku shabahayso marka laga fiiriyo xagga marka laga fiiriyo suugaanta waxaa la dhahaa figurative speech waa hadal sarbeeban runaantii way qofaad wax ku sheegaysaa waxa sifiisu leeyahay laakiin waxaasi ma aha marka tiraahdo Ali is a lion Ali waa libaax marka tiraahdo Ali libaaxi caadiga ma aha laakiin wixii sifada libaaxu leeyahay waa marka Soomaa waa geesi marka tiraahdo waxaan waxaasu yahay wixiina uusan ahayn metaphor Allah luqada metaphor بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي ذا غالية إغلا صعدة براها بلشدة ومعلنكني عبد الرزاق إبراهيم آذن بريتش ما أنت وحديث ذا ورقاد وفرحين دونا أرد بدنا وبهن اللغة الصيهر مريان كاسوء إن ندين سو قد بدونه برامج تطبع الله أن نقوم قاعد رأي جمعة إيه حكمة بوقتها برنامج كان جوديسا وحن إذن كله وذاك دونا إن نسمري أما دول كوسا مين دونه qaar kamida buugta ugu saameynta balaaran dunida ee ka caawiya malaayiin dad ah inay wax ka bedelaan noloshooda dhinaca fikirka nafta iyo maareynta lacagta haddaba maxaan ka faa'iideynaa barnaamijkan wuxuu leeyahay laba faa'iido weyn mid waxa weeye kordhinta ereyada luqadda waxa ku siyaadaya oo aan ku dhex macnan doona erey badan kaasoo arday badan u siyaadin doona luqadooda faa'iidada labaad waa bedelka ha fikirka xun aad ku bedelayso ha fikir wanaagsan iyo inaad gudahaaga iska dhisto jabca kasta marka waxay ku noqon kartaa fursad cusub oo aad ku dhisi karto gudahaaga ku hagaajin karto fikirkaaga kuna horumari karto mustaqbalkaaga ku soo dhawaada marka xalqadii koowaad iyo barnaamijka cusub jamcada iyo xigmadaha buugta inta aan soo hor u gelin buugga aan diiradda saari doono jamcadan waxaa idinla wadaagayaa war wanaagsan oo ah qofka u baahan luqad israacsan inaan bilaabi doono laba nooc oo koorsooyin ah mid waxaan ku bilaabayaa qaab online ah oo qofka adduunyada meesha ka joogo oo markaas luqadiisa ku qaadan karo ardaygii heli kara firaaqo iskuulka soo xaadirana waxaan xisada cusub ka bilaabayaa iskuulka Al-Cimra laanta koowaad Al-Cimra Baranjawan ee ku taala magaalada Muqdisho nawaaxiga wadada kilometer 4 marka nagala soo xiriira kontaktida aan leenahay haddii marka aan galo buugga koowaad ee aan maanta dulmar ku samayn doono waa buuggaad u jeedaan ee la yiraahdo The Mountain is You mountain waa buurta adiga ah intee anaga naga mid ah oo ayaga caqabad isku ah The Mountain is You haddii aan xagga luqadda ka fiirino English korto wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo metaphor waa masal ama shabah wax ku shabahayso shaygaas uu yahay leedahay isagoo shayga uusan ahayn metaphor marka masalka ama shabaha wax ku shabahayso marka laga fiiriyo xagga marka laga fiiriyo suugaanta waxaa la dhahaa figurative speech waa hadal sarbeeban runaantii way qofaad wax ku sheegaysaa waxa sifiisu leeyahay laakiin waxaasi ma aha marka tiraahdo Ali is a lion Ali waa libaax marka tiraahdo Ali libaaxi caadiga ma aha laakiin wixii sifada libaaxu leeyahay waa marka Soomaa waa geesi marka tiraahdo waxaan waxaasu yahay wixiina uusan ahayn metaphor Allah luqada metaphor waa figurative speech waa hadal sarbeeban oo suugaaneed ah ciwaanka laftigiisa buurti adiga ah laakiin adiga buur ma tihid laakiin aad soo taagan waa wax adiga iyo nolosha guusha buura adiga buur u dhaxaysay buuggan waxaa qortay gabar la yiraahdo Brianna Wiest runtii buug kale oo qiimo badan way qortay gabadhaasi laakiin waxay fahantay dadku inay barbar xal ka raadiyaan dadka kala dhaxooda ama qof kale inuu xal ka hayo halka gudihiisa uu ku jiro marka Brianna Wiest waxay isticmaashay erey metaphorical ah oo wax salbeebayo oo ah buurta adiga ah marka gabadhan waxay tiri The Mountain is You war adiga buurta adiga ah waliba waxay sii hoos dhigtay war kale oo ay leedahay buuggan wuxuu qaban doonaa transforming wuxuu bedeli doonaa transforming waxaad bedelaysaa self sabotage is-curyaaminta isku haysay erey kale oo Ingiriis aan u baranayno self sabotage is-curyaamin is-curyaamin noloshii adaaba curyaaminayaba
qof kale kuma curyaaminayo adiga noloshaada curyaaminaya kuleeda gabadhan waa self sabotage is curyaamintii rabtaa transforming waxay rabtaa gabadha in la bedelo transforming waxay rabtaa inaad bedesho oo bedel ku samayso self sabotage is curyaaminta nolosha aad ku haysay intu ay u bedelaysaa self mastery hanashada nolosha ina nolosha adiga hanato self mastery waxa weeye inuu qofka noloshiisa si fiican gacanta ugu dhigo u controlo halka qofka control laha in aad noloshaada controlsho oo aad si fiican gacanta isugu dhigto marka transforming waxa la bedelayaa self sabotage is curyaamintii intu ay loo bedelayaa marka self mastery inaad macallin ku noqoto noloshaada oo noloshaada aad si fiican u hogaamiso self mastery hanashada noloshaada inaad si fiican u controlsho ayaa marka ay ciwaanka hoosana uga dhigtay marka nuxurka buugan oo aan jamcada dambe aad u dhaxgeli doono ayaa isagu wuxuu ku leeyahay stop Georgie looking for inaad raadiso external solutions xalalka inay dibadda ka imaanayaan dhinac kale qof kale inay ka imaanayaan xalalaha nolosha solutionskan oo xalka waaye solutions wixii xalal ah external inay yihiin oo dibadda kaaga imaanayaan ha ka raadin xalalka noocaas all the problems dhammaan mashaakilaadka in life nolosha are just internal gudaha le waayo gudaha on waay internal waay gudaha not external xal ha ka raadin qof kale saaxiibka adeerka aaba xal ha ka raadin internal waa xalka gudaha uu ku jira mar gabadha buugan qortay waxay ku leedahay your biggest obstacle caqabadaada ugu weyn obstacle caqabad waa erahan qoro your biggest obstacle caqabadaada ugu weyn is yourself waa adiga la fahantaada caqabada dhow la fahantaada waay la fahantaada waxay leedahay your fear cabsidaada kooway ka tahay your fear cabsi waa fear your fear cabsidaada your anxiety walaacaaga iyo walwalkaaga your anxiety walaacaaga iyo walwalkaaga anxiety walaac iyo walwal anxiety ereyada cusub oo qoran kartaan anxiety walaac ama walwal walbahaar anxiety your self doubt iska shakigaaga iska shakisada adiga inaad wax qabsan karinba doubt waa shakiga DOUT for book T u qoraya doubt baad kuma dhawaaqaan you are doubt shakigaaga qof iska shakisanba inuu asaga wax baran karin marka asaga caqabad isku ah Soomaa self doubt adaa iska shakisanba believe in yourself is aamin adiga horta believe in yourself adiga is aamino inaad wax qabsan karto aamin believe in yourself noloshaada aamin adiga is aamin self doubt iska dhaaf iska shakiga marka maanta xalqadayda koowaad hordhac ay ahayd intaan ayaan kusoo afmeerayaa inta laga gaaray jamcada dambe oo aan idiin keeni doono ama aad u dhexgeli doono ama si qoto dheer aan u dhexgeli doono buugga isaga ah oo aan dareemayo in badan oo in ka mid ah oo ayaga caqabad isku ahaa dabar isku ahaa ay dabarka iska furi doonaan buurta ayaga isku hayeen xag gudahana ay markaa ka talaabi doonaan oo isfahmi doonaan isna aamini doonaan waa inoo jamcada xigta iyo buuggii oo u dhexgeli doono si qoto dheer insha Allah